balansanayn muxaadaro uu inoo soo jeedin doono muxuu ahaaye oo baraarujin ah sheekheena Dr. Maxamed Maxamed Shibli xafidahullah kuna saabsan insha Allah tobanka dambe iyo sidii looga faa'iideysan karo khaasatan waqtigan ayada ahay muxuu ahaa caqabadka iyo coronavirus ay jiraan saan uga baranay sheekha hadda ka hor baa uu inoogu imaan jiray iskuulaadka maadaama hadda iskuulaadka aysan jirin haddana wuxuu waqtigiisa inoo huray insha Allah inuu inooga faa'iideeyo iyada caqabada jirto marka si fiican looga faa'iideysto si fiican loo dhageysto ilaahay hayna waafajiyo amaashan Allah inaga aqbalo dhibaatooyinkana ilaahay naga dulqaaday nakay muslimiinta wa jazakumullahu khayr aad baan idin soo dhaweynayaa dhamaantiin kuwii hadalka maqalkiisa fiican ka qaatan Allah inaga dhigo you are welcome all of you sheekh soo dhawo programka waa barnaamijkii California Groups of School ardayda hadda ku baraarujin jirtay laakiin maanta qaadan haya muxuu ahaa site kale oo online program marka sheekh Allah ku barakeeyo aad baan ku mahadcelinaynaa hadii koor dadaalka iyo muxuu ahaa waqtiga aad noo horto cilmigaagi iyo camalkaagan Allah ku barakeeyo aad baan ku soo dhaweynaynaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى خيرك الله ينوافجيه خيرك الله ينقو كل ميو كسب شديسة يا عمل سمينتي سنة الله ينقو سهله الله ينقى أقبله سنة كان مانتا بشهر رمضان وحال السومية اللواتن يلا وحاله واتدوى بري وحكا لمن إيقنا وحال فريا السبتي أما أحد السبت ذا نقوم ويلو عيد وي تنصوص وتكدم بيس طبعا كدم رمضان وطبعا كوفضل بدن ama u ajir badan bisha markii la isku celiyo qayb laga dhigo wana tobanka la doonayo dadaal dheeraad in la sameeyo iyadoo bisha guudba in la dadaalo la iska doonayo ana tobankani way ugu sii muhiimsan tahay nabigeena sallallahu alayhi wa sallam haday tobankan dambe bisha ramadaan soo galaan dhowr tilmaamood baa lagu tilmaamay وحالي شد مئزرة ويقظ أهله وأحيا ليلة صدح ذات المامود بعد إيراد كوهان شري شد مئزرة كنت يسكوات كين شري قفكم مركب الشقاق قوانيو هولا ضقنا وديار قروبيو دي معوسي وحلا قلت لي يا هنا سفي عنه وقلت ذا سيانا يقدعن hadduu sarwaari yahayna midaan ka dhacayn buu qaataa hadduu u baahan yahayna suum buu ku adkeeyaa saas darteed waxaa looga jeedaa qaybtaas hawl badan uu u diyaargaroobi jiray diyaargarow adag kusan hadhow dhar xirasho iyo gunti xirasho iyo suul iyo sarwaal xirasho uga mashquulaynin marka hore waa dhar aan ka dhacaynin iyo si fiican inuu u guntada uu samayn jiray وأحيا ليلة هبين كانوا وانولين شري طبعا كان ضمن فضل قالوا هبين ندي إذا واحد ليرات كلام ليرات كهرباء ما أنتم مرمها كلام الله تنكهرا هاي في رمضان بيلمته كان نبي وأحيا ليلة هبين كيسون نولين شري وحلوقت شيء ده هبين كان نولين تيسودي هالك أوصل رئيس يمالي درجة أوصل رئيس هاي وإن هبين كنا نقف كسو تشيدو وخير يا عبادة مرو تكنيو مرو قرآن أقرأ سنيو مركو ذكرية تصبيح كتشيدو مرو دعاء سنيو مرو علمي خير فائدة سنيو أما دد فائدين أيو وح عبادة كاملة وحيابا إلهي تشعلي هيا إنو هبين كسو تشيدو دمانتي ودرجة وصل رئيس درجة الله بادي وإن iyada lafteedu kala sarsarayso
qayb ka mida habeenkii uu soo jeedo salaado tukado quraan akhriyo ducaysto tasbiix iyo adkaar akhristo khayrka fiiriyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax allaale wuxuu raalli ka yahay oo habeenkiisa ku camiro oo ku buuxiyo darajada ugu horeysa hooseysaay waa inuu salaadihii sanad tukada maqribkii iyo cishihii waa iska seexda oo yidhahda fajarkaan tukanaya tan dambe u dambaysaay waxaa la doonaya maaha waxaa laga doonaya qofka ugu muhiimsan waa darajada ugu sarreysa ama intuu u dhoweyn kara inuu u dhoweeyo waxaa lagu soo jeedayana filim la daawadi iyo in la sheekaysto oo fadhi ku dira la sameeyo iyo inaad maanta oo dhan websaydi iyo beejaj iyo akhrida iyo facebookyi iyo ku jirta maaha meesha aad ku jiraysa dadka wax la wadaagayso ama inaad khayr ka faa'iidaysanaysa ama khayr u faa'iideynaysa niyaddeeda haddaad ku dartana waa qayb wanaagii ka mid iyo cibaadadii lagu nooleynayay habeenka hadda waxaa inoo suuragal ah adoo gurigaaga iyo qolkaaga jooga caalamka daafihiisa dad jooga inaad wax u sheegto ama wax ka faa'iidaysato wax dhegaysato wax khayra daawato wax khayra duubto wax khayra baadhood baratood cilmi iyo diin iyo wax akhrido saas darteed maanta labaadna waxsan waxyaa layidhi habeenka u nooleyn jiray habeenku cibaada intii hadba cibaada la cibaadaystaa la nooleeyey qadarkaad cibaadaysata ayaadna noolaysa qaybta saddexaad ee nabiga lagu tilmaamay waxaa weeye wa ayqada ahla dadkiisana waa toosin jiray isagoo keligiis kama cibaadaysan jirine reerka iyo carruurta iyo ilmaha iyo odayga hadba kii seexda maahane ka kale in la istoosiyaa la rabaa nabigu xaasaskiisu toosi jiray wuxuu dhihi jiray ka kaca xilligan xilligii la jiifi jiray maaha waa xilligii fursaddu ay jirtay waa 10 habeen oo tirsan ama 9 ba noqon karta intaasaa waxaa laga doonayaa qof kasta oo mas-uul ah isaguna inuu dadaalo habeenkiina nooleeyo oo khayr ku soo jeedo dadka la jooga ee uu mas-uulka ka yahay ama guriga kula noola oo hurdada ka jafo oo yidhahda kaca xilligii la jiifi jiray mee toos oo tukada way qada ahla nabigu sanadka inta kale dadka la toosiye ma samayn jirin marmarun xaasaskiisa uu baraarujiyo oo dhihi jiray qaybta dambe habeenka marka la gaaro waa dadkiinan qolalka jiifo xilligan xilligii la jiifi jiray maaha oo bil asxaari hum yastakfiruunahay sadarteed waxaa laga doonayaa dadka waalidiinta iyo dadka mas-uuliyiinta ihi in ay iyaguna dadaalaan dadka guriga la jooga iyo ubadka iyo ilmahana toosiyaan habeenku wuxuu u khayr badan yahay thuluthuleylka dambe thuluthuleylka ama 3 meelood thuluth waxaa la yidhaahdaa 3 meelood meel wanfaarka ugu dambeeyaa la yidhahdaa marka wanfaarka ama 3 meelood meesha ugu dambaysaay waxaad ka xisaabtaa xilliga maqribka la aadaamo iyo xilliga salaada subax la aadaamo inta u dhaxaysa ee saacadood 3 u qaybi tusaale ahaan haddii 6 barka maqribnimo la aadaamo salaada subaxnimona 5:10 la aadaamo xaggan 12 saacadood 50 daqiiqa ka gooday dhinacan kalena nus saac baa ka gooday macnaa saacad iyo 20 daqiiqa ka gooday waxaa kuu soo haray waa 10 saacadood iyo 40 daqiiqo 10 saac 40 daqiiqo baad leedahay 3 u qaybi thuluthka hore 3 meelood meesha hore 3 meelood meesha labaad 3 meelood meesha saddexaad qaybtaa iyadu in la jiifa ma bahaba gaar ahaan 10ka dambe sideedayba sanadka dhan u fadli badan tahay saas darteed waa dadaal dheeraada oo dhammaanteen la inaga doonayo ramadaanku hadduu tago uu soo noqon laakiin innagu haddaan tagna soo noqon mayno ramadaanku sanad walba waa soo laabtaa laakiin adoo nool ma kugu soo gaari doonaa weye aduu haddii aad ka baxday ridda adduunyada وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحواجبة قراء أنه هلاقنا الدنيا كتكتور لما إنا نيسون نقونين الدنيا مرة بعض نرى الدنيا أنا كسول لابين سيدا ويسيدا قود آدمها إليه سبحانه وتعالى أقوم دي عالم كنا كتشان قوي ساس درتاد
nabigu saasuu u dadaali jiray sala allahu alayh waali wasalam marna waxaa la yidhi uu dadaali jiray tobanka dambe maa laa yajtahidu fii gayrihi min ramadaan qaybta kale ramadaanka inuusan dadaalin buu dadaali jiray innagana tusaale inoo tahay inaan nabigeena ku dayanno sala allahu alayh wasalam tobankan dambe iyadoo tobankii ramadaan uu u fadli badnaa ahaa tobanka habeen ee sanadka oo dhanna u fadliga ee jirka badana haddana waxaa ku jirta hal habeen oo sanadka dhan u fadli badan oo ah fi leylatu lqadri habeenka leylatu lqadrigiihi waa habeen tobankan ku jira mid uu yahayna aan la aqoon labadii tagtayna waa noqon karaa toddobada ama sideedda dhimanna mid kamida waa noqon karaa habeenka leylatulqadriga qur-aanka waxaa laynoogu sheegay khayru min alfi shahr 1000 bilood bay ka khayr badan tahay 1000 bilood haddaad sanad u bedesho waxaad samaynaysaa 1000 baa 12 u qaybin sanadka waa 12 biloode 83 sano iyo waxoogay bay noqon cimrigaaga intaad noolaydba ka badan 83 sano iyo dhowr bilood oo aadan leylatulqadri waafaqin hal habeenood waafaqday camalkaad samaysaa ka ajir badan lamid buu yahay laguma laha uu ka ajir badan yahay haddiiba ajirka intaa leeg 10 habeen gudahood ku jiro fursad inay dayacaanta ah maba aha habeenkaa daydaygiisa iyo raadintiisuna qayb bay ka tahay in dadaalkan 10 beri la sameeyo nabigeenu calayhi salaam siduu habeenkaa u raadiyey intaan loo sheegin 10 dambe inay ku jirto laakiin uu ogaa bisha ramadaan gudaheeda inay tahay 10 hore ee bishu ictikaafay oo masaajidka fadhiistay markuu 10 dhameeyey iyo xagga rabbi looga waxyoodoo la yidhi weli way kaa horraysaa maadan gaarin 10 labaad buu ku qabtay 20 markuu dhameeyey yaa waxaa lagu yidhi 10 dambey ku jirtaa dadkii uu la hadlo wuxuu yidhi habeenkaan raadinayna waxaa la ii sheegay 10 dambe inuu ku jiro qofkii dadaalka ila sii wadaya ha ila sii wadaan waan wadayaa 30 beri oo isku xigtuu masaajidka ku ictikaafayo raadinaya habeenkaas isagoo wax walba loo dhaafo darajada u sarraysa ilaahay siiye innagu waa ka mudannahay oo dembi badan oo khalad badan oo gaabis badan oo wax laynoo ballanqaado oo jannaa aynan jirin dembi dhaaf laynoo ballanqaado oon isku hubnaan aynan jirin xilligaan raadin lahayn iyo dadaal dheeraada inaan ku bixinnahay waa mudanta habeenkaa 1000 bilood ka ajir badan ee ka khayr badan waxaa nabigeena ka sugan sal ly slam inuu yidhi qofkii leylatulqadriga istaaga ee nooleeya ufira lahu maa taqadama min dembi wax kastoo dembiga horay u soo sameeye waa loo dhaafaya intaad nooleed wixii dembi aad gashay dabcan kii xuquuq aadamaha kuma jiro iyagay ku xiran tahay laakiin wixii kaloo dhan dad ilaahay dartii ajirdoon u istaagtay waa lagaa dhaafay ma jira wax muhiim ma aha inaad habeenkaa garanaysa leylatulqadri inay tahay iyo inaynan ahayn wax ajir oo shardi oo kaaga xiran ma jiro inaad noolaysay ood cibaadaysatay oo ilaahay dartii u cibaadaysatay unbaa lagaa rabaa intaa haddaad samayso kuna beegantood waafaqdo ilaahay kugu aadiye habeenkii leylatulqadriga ahaa ufira lahu maa taqadama min dembi dembigiisii horo dhan baa qofkaa loo dhaafaya waxaan filayaa waa abaal weyn iyo ballanqaad weynoo inaan dadaal badan samayna keenaya maadaama aan is ognahay inaan dembi badan nahay camal iyo cibaadadeeduna ay aad u yartahay khaladkeennuna aad u badan yahay leylatulqadriga ma jirto calaamad ka soo horraysa ood ku garan karta caawa waa leylatulqadri ma jirto calaamad la taaban karo oo la hubo oo markaad ku dhex jirta aad ku garan leylatulqadri inay tahay ood isku hubi kartana ma jiro calaamad ka soo horraysa ma jirto habeen gaar ay tahayna lama yaqaan wax lagu garto astaan oo rabbi sharcigu u sameeyeyna ma jirto dhexdeeda calaamadaha la sheego markaad ku jirta inaad ku garanna calaamad aad hubi karta ma jirto waa un qiyaas amay tahay amaad aragtaya wax shaki ku jiro un waayo waxa ugu dhowey calaamad lagu gartaa waa mar ay tagtay calaamad muuqanaysa wey oo subaxii qoraxda inay soo baxdo iyadan shucaac iyo waxba lahayn
dee taadii qoraxdii soo baxdo habeenkii tegayna kaaba teg. innagana dadka Nairobi joogaayey kumaba jirno qorax soo baxday in la arkaaba yarba oo daruuraha qarinaya waqtigay soo baxayso. mar haddii qoraxdiiba daruura kaa qarinayaan waqti uu tegay habeenkiina tahay, waxaa lagaa raba waa dadaal inaad samayso habeen walba. habeenada ay ku jirto habeenka ay tahay lama yaqaan. wax ma jiro wax cad oo nabigeena ka sugan sala allahu calayhi wasalam uu sheegaya habeenka tirada leh baa leylatulqadri ah. saxaabada qaar yidhi habeenka waxaa weeye 27 baa jira, oo axaadiista qaarkood sidaa u fahmay. qaar waxaa jira waa 23 yiri oo sidaa u fahmay. qaar waxaa jira waa 21 yiri oo sidaa u fahmay. qaar waxaa jira yiri waa 29 oo sidaa u fahmay. waa dad faham ay axaadiis isfahansiiyeen. waxa nabigu yiri habeenka gaarka ma jiro, isagaaba raadin jiray. isagaana yiri waa intii la ii sheegay baa haddana la halmaansiiyey habeenka yahay. kaliya waxaa nabiga ka soo socda sallam habeenada tirada isdheer ah inay tahay 1, 3, 5, 7, 9. laakiin waxaa muhiim inaad ogaato haddana nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam habeenada saas ah sida loo tirinayo inaan la garanaynin. hore baa laga wadayaa mise gadaal baa laga soo tirinayaa. markaan 20 ka dhammayno 1, 2 dib baan ka soo bilaabaynaa xaggii 30 mise xaggan hore 21 ka wadaynaa. labada way dhici kartaa. bishu hadday 30 tahay xaggan haddaad ka wadana habeenka 21aad bay noqon tirada isdheer. gadaal haddaad ka soo tirisana habeenkaasi 30 hadday noqoto habeenka 10aad buu noqonoo tiradii isdheerayd ma aha. halkan maxaad ka garatay 10kaba inaad dadaasho. waxaba kanaa witri iyo tanaan witri ahayn waxba ha isku mashquulin. wuxu waa 10 habeen oo lagaa doonayo inaad dadaasho. naftana hurdadu iyo shaytaanku kuwii yaryaraaba furfuran oo kuwii khatar tahay waaweynaan baa la xirxiraya. way jecel yihiin hurdada inuu ku xasuusiyo markaad cibaado rabto. wax kale haddaad ku soo jeedaysana hurdo ku qaban mayso. haddii kale dhabarka ay xanuunay iyo lugaha ay xanuunay iyo hurda ay qabato waan haamsanay iyo waan daalanahay iyo in ku dhibta shayaadiin way jiraan. kuwii balad ahaa ee khatarta ahaa baa la xirxiray. waxaan rabaa inaan idin iraahdo habeenka raadintiisu waa wax ka mid ah waxyaabaha dadaalka dheeraadka ah loo samaynayo. habeenkaana meel gaara laguma oga, maalin gaarana ma laha, astaan ka horeysana ma jiro. ajirkiisuna 83 sano iyo dhowr bilood buu dhigmaa ama ka fadli badan yahay. hadduu ka fadli badan yahay ma 90 buu gaaray ama 100 buu gaaray, allahu aclam. waxaa laynaga doonayaa inaan samayno dadaal habeenka aan ku raadinayn. nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay weydiisay ummulmuminiin caaisha radiallahu canha waardaaha, rasuulka ilaahay oo haddii leylatulqadrigii ilaahay i waafajiya maxaan dhahaa? wuxuu yidhi waxaad dhadaa allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii. alaahu adigu waad cafidaa, cafiskana waa jecesha, ilaahu iska kay cafi. dembigaan galay iyo khaladkaan galay iyo eedaan galay iyo xumaantaan sameeyeyba rabbow iska kay cafi. marka ilaahay cafis in la weydiisto oo la ducaystaa layna baray. in salaad la tukado oo dikriya khayr la sameeyana nabigeennaa sameeyey sala allahu calayh waali wasalam. taasi waa dadaal dheeraadahoo badan oo la inaga doonayo in aynu samayno. saa darteed 10ka dambe intaasi waa dadaalkii guud ee la iska rabay iyo sidii loo dadaali lahaa. waqtigaan joogno hadda ee aynu ku jirno ee guryaha la joogo. dabcan guryaha la joogaadu oo masaajidii iyo meelihii waxbarashada xirane, markaa magaaladii suuqii way furan yihiin oo dadkii shaqaysanaya dadkii xamaalayay markii meelo gaar oo sektarro gaara laga reebo markaad suuqii waa furan yahay, dukaamadii dadku way shaqaynayaan. laakiin maadaama guryaha loo badan yahay
habeenkiina aan la socon karin oo dibanda uu saaran yahay meelo kaloo laga yaabo inuu qofku si uu u tago ay saa u xaniban tahayna waxaan isleeyahay waa si fiican oo looga faa'iidaysan karo sababtoo ah waxa ku xidhnaa masaajidda waxaa jira ictikaaf dadka masaajidda dhex seexda ee 10 beri ku nagaada masaajidkan ka soo bixin dadkaasina waxaa laga yaabaa intayna meesha wada joogtahay dad aad u tiro yar oo faraku-tiris oo 5-10 inay ahaayeen dadka sidaas ahaa ee samayn jiray sanadkana duruuftaa ka hor istaagtay iyagoo guryahooda joogaa ajirkoodii loo qorayaa nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu qofka muslimka ah haddii uu safro ama xanuunsado waxaa loo qorayaa ajirka wixii uu samayn jiray markii uu nagaaya gurigiisa joogay iyo markii uu caafimaad qabay waayo dan iyo duruuf baa u diiday uu samayn jiray uuna samayn lahaa sida la filayo sa darteed dadkii soo samayn jiray ee soo ictikaafi jiray iyagoo guryahooda jooga ajirkii loo qorayo midda koobaad waa mar labaad ee dadku hadduu wixii qaban lahaa oo niyaddoodii iyo ku talagalkoodii uu ahaa oy doonayeen inay ictikaafaan oy ka go'nay laakiin duruuftani diiddana iyana ajirkii baa loo qorayaa xataa markii jihaadka la aadayo nabiga alai slam wuxuu yidhi madiina dad baan kaga soo tagnay toggaan goynaba ina laga gooyey waxaan samaynaba inala sameeyey ajir ahaan helaya iyagoo madiina guryahoodii jooga xabasahum alcudur cudurdaar baa xayiray cudurdaarkan dadka masaajiddii u diiday jamaacadii u diiday insha allahu tacaala ajirkii aad masaajidka ka heli lahayd ee jamaacana haddaad tegi jirtay waad helaysaa haddaad ictikaafi jirtayna waad helaysaa dadkaasi waa dadka ictikaafka rabay laakiin intaynu u badannahay oon ictikaafaynin marka horeba guryaha fadli badnaa salaadaha sunnada in lagu tukado ama taraawiixdhe ama habeenka qaybta dambe loo soo kacan oo nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam guryihiina ku tukada fa inna afdala salaati almar'i fi baytihi illa almaktuba guriga salaadiisa qofka salaadiisa waxaa ugu fadli badan guriga wixii aan farad iyo waajib ahayn masaajidka markaa nabigu ka hadlayay munaasabadu ku timid masjidkiisa barakaysan ee ajirka badan buu ahaa ee salaadii lagu tukaday salaadaha kale kun ay uga dhiganto waxaan leeyahay ay uga dhiganto 100 salaatin 100 salaad uga dhiganto haddiiba masjidkii nabiga la yiri dadkii joogay guryihiina sunnada idin fadli badan innaguna waan ka sii mudannahay oo sunnada guryihiina inoo fadli badan saas darteed markii horeba salaada taraawiixda iyo salaada tahajjudka guryaha fadli badnaa hadda maxay isku yeelatay ajir baa wax fursada badan bay gurigu yeelatay waa kow masaajidka intaad tagtood iska dhagaysan jirtay qur-aanka la aqrinayo adigaaba hadda salaadii guriga ku tukan oo qur-aankii akhrin salaadiina ajirkeeda waad heli akhriskii qur-aankana kitaab la soo kala bax mobilkaaga la soo kala bax oo qur-aanka furo abka qur-aanka intaad soo dejisato qur-aankiiba ku tuko oo marka labaad ee dadka gurigu dad hadday joogaan jamaacadii waad ku tukan kartaan dadka haddaad soo kaciso soo abaabushana ajirkaasoo kale intaad heli waa midda saddexaad ee dadka waalidka intay masaajidda aadaan ilmaha iyo gurigu dayacmi jiray ilmahoodiina way la cibaadaysan gurigoodiina way ilaashan oo hawshii dayacmi mayso haddii masaajidka iyo aaditaankiisu diyaargarow iyo isxidhxidh iyo wax badan qaadasho iyo u lahaa iyo wakti kooban oo dad intaa isku timaadaan isriixriixdaan tani waa wakti habeenkii dhan oo furan gurigaagiina si khaalisa ilaahay ugu caabudaysa bal tani way ka ikhlaas badan tahay ilaahay dartii badan tahayoo masaajidka dad un ha ku arkaan iyo waxbaa marar iman jirtay laakiin tan waa keliga adinkii iyo gurigiinni iyo allihiinni waay saa darteed bay cibaadadu markay guriga tahay sunanka ah bay ka fadli badan tahay midda masaajidka la aado in la wada tukado in ilmihii la toosiyo in salaadihii la isku xirto in qur'aan la wada akhristo in la wada ducaysto in khayrka la isu sheego ilmihii iyo carruurtii iyo dadkii guriga joogay cidday salaadu kaba khaldan tahayna ooba jaanis iyo fursad ilmaha laftooduna iyagaa la dhihi karaa ina tukiye
kitaabka qaado adigu ila tuki hadduu mid xifdisan jireena ka xifdisan baa tuki la yidhaahdaa midaan xifdisanayna kitaabka qaad oo fiiri oo la soco wuxuu khaldo ka sax baa lagu yidhaahdaa gurigaagii baad joogi kartaa dad qofkii akhriyayay masaajidka kitaab qaadan jirto oo ka fiirsan jirtayna haddaadan adigu tukinaynin oo ku tukrinaynin kitaabkaaga intaad qaadato waad kala socon kartaa waad fiirsan kartaa mas'alada laylatul qadri raadinteeda iyo 10ka dambe noolaynteeda wax gaara oo masaajid inagaga xidhanay ma jiro masaajidkana wax kaloon ictikaafka dadkii aadayay ahaynoo inagala maqan yahay ma jireen innagun baa laynaga rabaa dadaalkeedii inaan samayn hal mid waa su'aal imanayso oo laga yaaba ardaydan inay ka timaado waalidkan inay ka timaado maamulkana ay ka timaado aan rajaynayo maamulku inay isweydiin doonaan haddii aynu nidhaahno dadkan diintooda iyo dunyadoodaba dadaalkani wuu anfacayaa rabbigood buu u dhoweynayaa dambi dhaafiya inuu ka raalli noqdo u gaarsiinayaa dadkanna waxa waxbarashada iyo loo samaynayo dadkani inay liibaantooda laga shaqeeyo wey de dadka haddii habeenkao dhan soo jeedaan subaxiina kalaasaad u soo kallihisaan dee iskuma keeni karaan saas darteed waan dhihi lahaa aniga oo laftaydu ka mida waalidiinta inay ubadka soo kallihiyaan laga rabo qofka waalidiinta iyo ardaydaba haddaan ku hadlo duruusta qaybta hore haddii waa dhowr maalmoodun maanta wixii ka dambeeya sabti iyo axadba weeyo ayadaaba fasaxana xagga minallaahi isniin iyo talaado iyo arbaco iyo khamiis weeye waxaa ka dhiman usbuuca dambe miday noqotaba haddii xisadaha qaarkood inta la yar hakiyo waktiga hala dheereeya ramadaanka kadib haddii la rabee si dadku markii ay intaa joogaan subaxii wakti yaroo yar seexdaan oo yar nastaan ay u heli karaan waxaan filayaa u ducayn lahayn haddii kalena nin turla tabta u seexda isagaa yaqaana sababtaa dee ilmahana cashirkii way ka faa'iidaysan lahaayeen iyagoo soo yar nafisay oo soo yar miirsaday waa codsi magacaygii iyo magaca aan isleeyahay intay la midka ah cid ima dirsan nin gaareh aan ku gudbinayo laakiin kolba waalidkaa la weydiin doonaa haddaad ila qabtaan laakiin habeenkii oo dhan hal la nooleeya haddaan dhahno subaxiisoo kallahaadu ma sahlana markii haddii xilliyada muxaadaradu bilaabatay oo kaleetana looga dhigo waxaan filaya iyadoo 4 saac ama 5 saac lasoo seexday baa la samayn lahaa wuxuna waa un usbuuce ama usbuuc wax ka yar weeye wax wakti dheera maaha waktigaana markii ramadaan ku dhammaado haddii gadaalna loogaga daro oo dib laga soo buuxiyana kolba waa aragti soo jeedinayo waan isleeyahay amay noogu kaalmayn lahayd inaanan ka walwalin subaxii ma soo kici kartid ilmihii yaa soo kicinayay habeenkii qayb yar seexaadan waxaan ku gabagabayn lahaa fariin aan raba inaanu diro waalidka guud ahaan gaar ahaan hooyooyinka inaanu diro bishii ramadaan 10kii dambe haddii lagu jiro dabcan hooyooyinka xil gaara saarano afurkii iyo jikadii baa saaran waana hawl badan oo qaarkoodii intay duhurkii shaqo bilaabaan bay maqribkii ku gaarayaan waxaan soo jeedin lahaa iyaga iyo aabbayowga iyo waalidkaba 11 bilood iyo 20 beri wixii la soo cunayey jirka wuxuu u tari waayey 8 beri hadda inoo dhiman ama 7 beri inoo dhiman u tari mayso afurku naftan wixii la siiyaba way iska cuntaa wax khafiifa oo timirta iyo biyaha iyo hal mar oo raashinkii dabka loo saaro haddii la rabo loo qaybiyo afur iyo cashaba looga dhigo mid rooti marsada iyo mid buskud cuna iyo mid timir ruuga iyo wax weyn iyo waqti badan inaan la gelinin cuntada karinteeda iyo jikadeeda in la dhimo waqtiga 70% jikada la gelinayo si looga faa'iideysto in la nasto nasashadaas oo ku caawinaysa habeenkii in la noolayn karo haddiiba duhurka casharadii iska dhammaadaan tusaale ahaan waalidku
iyo ilmaha dhammaantood intay gurigii joogtay duhur ilaa casar seexasho qasabaa la seexan karaa haddii casarkii lasoo kaco 4:15 oo la tukado 4:15 haddii la tukado ilaa 6:15 2 saacadood dadku waxa afur ugu filan waa lagu samaysan karaa wixii ka dambeeyana markii la afuro kadib maqribka baasta lagu tuuray biyo kulul iyo bariis biyo kulul lagu shubay waqti kooban bay qaadataa bahalkan dhibka badan ee dheefta yar ee waqtigana badan qaatay saamuuskaana iska daaya 10 dambe anu maara cunto ka dhib badan oo ka dheef yar maarag waxa ugu badan cuntooyinka waqtiga dheer qaata waxaan rabaa inaan iraado iska daaya jikadan waqti badan aad gelinaysaan iska daaya odayaasha saamuuska jecella 10 dambe inta ka laaban raalli ahaadaano wax ka weyn baan raadinaynaayo ridihii ilaahay iyo dembi dhaafa kii baan rabnaa inaynan daalin oo gabdhihii u nastaan hooyo nasatay oo habeenkii soo jeeday oo noolaysay oo ilaahay dembigeedii dhaafay intay ubadka iyo reerka iyo odayga anfacaysaa ka badan inta uu saamuus iyo bur la jiijiiday oo la fidiyo oo la laalaabay uu anfacayo cuntada iyo hunguri libin ma laha haddaad saaka dharjiso duhurkiin buu ku leeyahay mana arag mana urin haddaad u celiso dharjisana fiidkiin buu ku leeyahay weligeyba wax ma arag waa waxaasoo joogtaad cimrigaa ku soo jirtay kula jiri doontaa maalmo cibaade iyo khayra inuusan inaga luminin ramadaanka inuu cashira wakaa qoreec ma laha qadam ma laha barqadii shaah ma laha casariye ma laha waa laga nastay hunguri maxaan uga nastannay ilaahay inaan raalli gelinayo cibaadiyi ajir iyo dambidhaaf inaan hello wey habeenadan yara inoo dhiman odayaasha iyo ubadka ilmaha saambuuska iyo cuntada dhibka badan jecel ha raalli ahaadaan odayaashuna hadday aad u jecel yihiin casarka intay soo baxaan kuwa makhaayadaha yaalla teekaway ha soo qaataan hooyooyinka iyo gabdhahoona ha loo ogolaado wakti qayb ka mid oo cuntada waktiga badan ka nastaan habeenadan inoo dhiman ramadaanka si ay uga faa'iidaystaan ubadkoodii iyo iyaga iyo aakhiradoodii adduunkoodaba ilaahay rumihiisa iyo dambi dhaaf iyo cibaada anfacaysa ha loogu kaalmeeyo ilahina wuxuu yihi watacaawanu cala albiri waataqwa ilaahay wuxuu yihi wanaagga iyo alla ka cabsiga isugu kaalmeeya intanna la isugu kaalmeeya waa mudan tahay gabdhaha iyo hooyooyinkana lagu kaalmeeyo kelmaddeydii intaasaan kusoo gudaanadii lahaa ilahi subxaana watacaala kuwii dadaal allah inaga dhigo allah inoo fududeeyo allah ina waafajiyo allah inaga aqbalo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الجزاء شيخنا محاضرة قيم كأي كلمين كسان هو إن أرضي كوذا فائدة سندونان يوالدين تدمان وحن مجالك أفصحيا أما أن جانس أصينا يا أرضي ذا قف الله لي قفكي سؤال قبا أما إنه قعنت تاكتو سي ميكروفون كله أفصحه أما أو سؤاشي سقر الآن وقصو قد بي هلكن سؤاله سيدي أسوك الله هردعان أيان ويدين دون الشيخة سؤاله إسله أما إسكو موضوع أهنا وإنه إسراعين دونا إنتو وقتو إنه قسامح وجزاكم الله خيرا أرضي ذا قف الله يقفك سؤال قبا أما قعنتها تاكتو أما سؤال أيضا قراله هسوق بيه نعم زكريا ايوه تويتي سمرك سؤال سؤال هذا habeenkii waqti hore habeenkii waqti hore haddaa taajudka bilo شيخ أفرد يعني سؤال شام مقله عبد الواحد habeenkii waqti hore haddaa taajudka bilowd ma loo geli waqti hore كوعلي سؤال habeenkii waqti hore haddaa bilowday taajudka ma loo geli waqtiga taraawiix iyo tahajud labadaba waxaa la isku dhahaa salaatu leyl ama qiyaamu leyl habeenkii oo la istaago waa isku waqti waxay bilaabataa markii salaada cishaha
iyo sunnadeeda la tukado wixii ka dambeeya waxayna dhammaataa salaada subax aadaankeeda dambe ee soonku ku bilaabanayay ku dhammaataa intaas kastoo ka mida waa tukan kartaa laakiin waqtiga ugu fadli badan waa 3 marka loo qaybiyo habeenka qaybta saddexaad laga soo bilaabo salaada maqrib waqtigan afurayno ilaa laga gaaro salaada subax waqtiga la adimayo anu inta saacadii ku aadantahay hadda ma garanayo taqriiban waa iska 7 saac iyo 40 daqiiqo 3 loo qaybiyey qaybta dambe ugu ajir badan haddayna qaybtaa kugu fillayn طبعا qayb baa kaa soo hari doonto suxuurtii iyo qaadan doono intaa haddayna kugu fillayn oo salaad ka dheer ama ka badan tukanayso waqti allaale waqtigaad rabtaad bilaabi karta waad qaybin kartaa salaadaada qayb baad tukan kartaa waxbaad iska akhrisan kartaa waad ducaysan kartaa qayb labaad baad tukan kartaa waxbaad akhrisan kartaa waad ducaysan kartaa qayb saddexaad baad tukan kartaa intaas samaysta waxaan karanayaa rag samayn jiray 2 ragcadood buu tukanayaa kadib uu 2 juz oo quraan 3 juz oo quraan akhrisanaya waa istaagayaa 2 ragcadood buu tukanayaa kadib uu haddana 2-3 juz oo quraan ka tuuraya dad baa saa ku wadi kara ducada qaar baa ku dhaxwadaya qaar baa sujuudda dheereen ku ducaysanaya salaada la tukanayana tira go'an ma laha waqtiguna waqti gaara ma jiro intaa cishaha kadib iyo salaada subax ka hor u dhaxaysa laakiin haddii waqti kooban inaad doorato aad rabto tulidkaa dambe ama 3 meelood meeshaa dambe bay ku fiican tahay oo qaybta ugu fadliga badan billahi tawfiiq جزاك الله خير الجزاء شيخنا سائل كحيجا وحوليه هي maxay noqonaysaa xukunka khaakhada waa dheecaanka soonka wax ma u dhimayaa haddii la liqo mise waxay la mid tahay candhuufta oo kaleeto alxamdulilah xakada candhuufta la mid ma aha oo ay ka duwan tahay laakiin soonka ma jabinaysaa haddii la liqo haddii ay afkan soka ku soo dhacdo tufi karto waa inaad iska tuftaa haddayna afkan soka ku soo dhicin oo kor markay ka timid ay horey u gudubtay ilaan markay kor ka timaado dhuunta qaybta shishe ay ku dhacdaa kadib ama xagga afka sokay u soo gudubtay ama horey bay dulaalka afka gudaha ugu dhacdaa haddii halkaa intay ku dhacdo ay gudubto ama iyadoo soo yar dhacday soo rid markaad tiri ay ku cararto soonkaaga waxba u dhimi mayso laakiin haddii afka soka ku soo dhacda candhuufta la mid ma aha ee waa inaad iska tuftaa wabillahi tawfiiq جزاك الله خير intaan su'aasha ku xigta akhrinin waxaan naqas siinayaa Cabdilcaziz Yusuf su'aashiisa sheekh السلام عليكم sheekh su'aasheeda waxaa waaye adigoo sooman ma daawan kartaa kuwa musalsaladan ay ka turjumaan asxaabta alxamdulilah daawashada barnaamijta documentary ee ka sheekaynaysa waxa wanaagsan ama cilmi iyo aqoon khayr iyo diin ka sheekaynaysa adigoo soomanna waa daawan kartaa hadday wixii cashiro diin iyo cilmi faa'iidaysi yihiinna habeenka laftiisa qayb ka mid a haddaad geliso noolayntii cibaadaday ka mid ah cilmiga akhriskiisa iyo barashadiisa iyo dhegaysigiisu waxyaabaha khayrkaa weeye goobaha iyo kulamada ay malaa'igtu timaada malaa'igta loogu talagalay goobaha khayrka inay tagto marka daawashadiisu haddii waxaan siira iyo taariikh iyo ka bara aad leedahay way bannaan tahay ama ha la soomanaado ama yaan la soomanaanin laakiin waxaa muhiim inaad ogaato dadkan wax jilaya matalaya ayagii ma aha waa dad joogo oo noolo in xun iyo in fiican ba laga yaaba inay isugu jiraan wabillahi tawfiiq جزاك الله خير الجزاء شيخنا سائلka igu wuxuu leeyahay adigoo lagu lahaa soonka la'a uguna yimid soonkii ramadaan markii hore mudaan kaaga tagay laakiin waqti uu ku soo qalay oo uusan helin qofku maxaa xukunkiisu u noqonayaa alxamdulilah
qofka haddii soonka ka tago ama cudurdaar ha uga tago ayuusan uga tegin inuu qadayaa lagu leeyahay soo gudo waxay ku kala duwan yihiin keliya qofka cudurdaarka lahaana dembi ma laha qofkaan lahaynna dembigu soo dambaabayaayo ilaahay dembi dhaaf inuu weydiisto u baahanayaayo dheeraada intaasay ku kala duwan yihiin haddii qado lagaa rabo qaduhu waqti dheer buu haystaa ilaa soonka kale laga gaaro wey qaduhu waa ka fudud yahay dhinac marka laga eego ka waqtigiisa lagu soomayo ka waqtigiisuna waa maalmo badan oo isku xiga kan qadlaha ana waad yaryarayn kartaa yar maalin baad ka dhigi kartaa 10 bilood ee ramadaanka dambe ka dambeeya bishii shawaal marka la dhaafo haddaad bishii 3 maalmood soonto 10 bilood waa 30 maalmood bishii waa kaa dhamaatay sadarteed dad waxaa jira aan awoodin waqtigiisa inay soomaan laakiin ay qadlayaan awoodda qofkii soo awooday oo yaryarayn karay ramadaankii kala ku soo galay isna uu khaldamay uu dambaabaya ilaahay inuu dambi dhaaf weydiisto ramadaanka markuu dhammaadana qadayaa laga rabaa qofkaan duruufta helinba uu ku qadayn karo xataa ku yaryarayn karo wax dembi ah ma laha hadduu ramadaanka soomi karo wuu soomayaa markuu dhammaada kadibna siduu u soo qallayn karo u soo qallaynaya wabillahi tawfiiq laba su'aal isku mid ah waxay leedahay qof familka ah ama qaraabo ah haddii uu dhinto asagoo soon lagu leeyahay laga soomi karaa alxamdulilah qof hadduu dhinto horta waa laga soomi karaayo nabiga yidhi maata calayhi siyaamu saama canhu waliyu qofkii dhintay isagoo soon lagu leeyahay dadka ahalkiisa iyo xigtadiisa ka soomiyo iskale marka labadaba waa la samayn karaa in laga soomana waa la samayn karaa in cunno laga bixiyana waa la samayn karaa maalintiiba hal miskiin laga quudiyo arrintaana samaynteeda ama idankeeda dadka weligiisa iyo ahalkiisa iyo dhaxalkiisa leh baa iska leh iyagu inay ka sameeyaan qofkii intaa ka baxsani iyagu weydiisan karaa idan hadday u idnaan uu ka samayn karaa bilahi tawfiiq بارك الله فيك شيخنا السؤال حكته waxay leedahay qof gaal ah dad xamati dad xamati dembi miyaa ka soo gaaraya alxamdulilah haa waxay ku xiran tahay dee waxa aad ka sheegtay xantu qofku wuxuusan rabin waa qofka muslimka ana dhaqankiisu xan iyo waxun inuu sheego ma aha waxaa layna yidhi man kaana yuminu billahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut qofka waxaanaad ku sheegtay haddii uu gaal xarbi yahay oo dagaal idinka dhexeeyo oo dilbi idin dhex yaalaay wixiisa xunee la sheega dembi maaha laakiin gaalka kale xuquuqdiisa iyo cirdigiisu waa ka xaaraan inaad wax ka sheegto ad axaydo inaad xamato inaad khiyaanto wuxuu kaa mudan yahay hadduusan diintaadii iyo kugu dhibin oo isagu ku dulmiyin laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayh qofka muslimkana waxaa laga rabaa dhaqan wanaagga iyo erey wanaaggiisu inuu tusaale u noqdo dadka islaamka iyo diinta inuu jeclaysiiyo adigana ogow ereygaa tiraada waa laguu qori dad inaad caydana ajir lagaaga qori maayo haddaan dembi lagaaga qori afkaaga lama baro cayda iyo wax ka sheegga aadamaha lama baro afkaaga waxaa la baraa wanaagga inuu sheego ama uu iska aamuso wabillahi tawfiiq جزاك الله خير الجزاء شيخنا أول سؤال اسكو موضوع كان هذا يا وحيابها الصوم الجديد qofkii sangorora ama intuu salaada subax seexda kadib ay janaabo ku dhacdo asagoo jiifa iyo qofkii hees dhegaysta saddexdaa xukunkooda muxuu yeeshay alxamdulilah xukunkooda waa kala duwan yahay dhinacyada qaar marka laga eego qofka sanku gororay waxba uma dhimayo soonkiisa
sanka qofka uu gororay soonkiisa waxba uma dhibay soonkiisuna waa ansaxayaa haddii uu xanuun u gororay uusan xanuunkaa la soomi karin qof jirano inuu afura loo ogol yahay buu noqonayaa waa midda koobaad qofka intuu seexday ama subax ha noqdo ama duhur ha noqdo ama casar ha noqdee isku junubay ama shahwadii biyuhu ay ka yimaadeen isagoo hurdaayey soonkiisa waxba uma dhibayso waayo qof hurdaayey wax waajib oo saaran ma jira intaa uu hurdo waxyaabaha qalinka laga kor yeelay ee nabigu ku daray buu ka mid ahaa wacanin naa'imi xataa yastayqid qofka hurda ilaa uu soo tooso hadalkiisoo dhan baan wax ka soo qaad lahayn iyo wuxuu sameeyo ka xukun takliif ahaan oo maantoo dhan hadduu intuu riyoonayo isagoo hurda waan gaaloobay dhaho ninkii yidhahda naagtii waan furay waxba laga soo qaadi maayo macna ma laha qofka uu hurdaa maskaxdiisii caqligiisii ma joogo qofka heesaha dhegaystaayey isaga waa dambaabayaa soonka ma jabayo laakiin wuu dambaabayaa wuxuuna dhaawac gaarsiinayaa ajirkii soonka xadiidka abu hurayra nabigu waa ka yidhi sal ly salam man lam yadac qawla azuuri waalcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaaba hadalka xun iyo falka iyo dhaqanka dembigaa qofkaan iska daynin ilaahay waxba oogama baahna inuu cunno iyo cabitaan iska daayo marka soonkiisu hadba intuu dembi iyo basiyo sameeyo ama xan ha noqoto ama dembi kale ha noqoto ajirkiisu baaba'aya ilaa uu ajir ajra wana waxay sii saayimin laysa lahum ila aljuuc waalcatash badanaa dad aan soonkiisa ka helaynin qaaji oon waxaan ahayn dembiguu samaynaya ajirkii baabah ka dhigay wabilahi towfiiq بارك الله فيك شيخنا سؤال شحكته waxay leedahay salaatu leylka ama tahajjudka inta aan ku jiro hadii aanan fahmaynin luqadda carabiga af Soomaali ma ku qunoodi karaa ama ma ku ducaysan karaa alxamdulillah salaad inta la tukanayo afku yaqaano qofka ilaahay uu ku baryi karaa ama markaa sujuud ha noqoto ama ha noqoto ataxiyaadka gadaashiisa ama ha noqoto meel kale oo lagu ducaysanayo hadiiba culimmadeena ay ogolaadeen waxyii salaadu ayna ku ansaxaynin la'aantii qofkaan aqoonin afkii carabiga inuu macnihiisa af kala ku sheegi karo tana ducooyinka oo sunana uu ku ducaysan karaa dhibaato malaha bilahi towfiiq بارك الله فيك شيخنا لبا سؤال عن إسراعين دونه مدة كوباد ليهي محاي دينتو كقبتا إن لعيارو لاندوغا أما فيديو جيمز كسيدة بلاي ستيشن كا اللي قال السومن يهي سؤال شلبات وحي كسعطا قف دمرة وحي لا هي هدو حيض ويمادو أما ديك حيض ويمادو مالينكا صونك الحديثة وحما عوني كرا مسوائنا لسوغا إلا يعبرك حيض مديق عادة الحمد لله سؤال دم ها وحوي كرتا مرة يقولوا فصح قشو ومالني عادة يكوي مادان إذا صون لك مرة ساعدة وكوي وحي كدام بيا قفا فرن وي قفا فرن وحي الله قلابا لو قليه سلا عيارها جيمس كاني عياره رو وحاجرة نبي وحرانتي النمية عيار نردي للهجر sababtii loo xaaraantinimeeyey tilmaanteediina la iskuma raacsanaa wax cadoo nabiga ka sugan oo qeexayana lama hayo tilmaamaha culimmadu sheegeen ee kala duwan iyo sababaha loo xaaraantinimeeye kala duwan ciyaarihii yeeshana way xaaraantinimoobayaan kuwan yeelanna way xalaal bay noqonayaan waxay ku xiran tahay waxaa dhici karta hal ciyaara inay marna xaraam noqoto marna xalaal noqoto sababtoo sida loo ciyaarayaa ama dadka ciyaaraya saamaynta ay ku yeelanaysaa kala duwan haddii qamaar ay gasho wax lagu kala qaadanayo wixii la doonayo ha lagu kala qaato ama xoolaha lagu kala qaato ama waxyaabo kale ha lagu kala qaato ama nooc foorjaa ha noqdo qamaarkeedii oo si meelaha qaarkood aan arki jiray dambas wejiga la isu marinayo ama qalin la isu marinayo
ama qofkii waxa lagu xukumayo xoolo inuu bixiyo ama qada bixiyo ama casho bixiyo ama wax lamid ay tahay ama hadday dikrigii iyo cibaadadii dadkii ka mashquulinayso ama haddii iyaduba ay ku lamaan tahay cadho iyo dagaal iyo cay iyo ay ku lamaan tahay haddii waxyaabo xaaraantinimeeye ay ku lamaan yihiin dee way xaaraantinimoobaysaa ciyaarta nardiga la dhihi jiray sidee bay u ekayd sababtii loo xaaraantinimeeyena maxay ahayd bay ku xiran tahay ciyaarahan laadhuga iyo geemiska ciyaaraha la ciyaaro waa laba qaybood ciyaar fikir u baahan iyo xisaabin iyo wax isku celcelis iyo xeeladaysi u baahan sida shaxda iyo halahan jarta la yidhaahda iyo waxyaabaha baabkaa soo gale baalkan turubka ay yidhaahdaan iyana waa qayb ciyaaro bakhtiyaan nasiibka ana waa qayb sida laadhudu waa bakhtiyaan nasiib baan u malayno waa sidaa isaga tuur ha isgadgadiyo wixii soo baxay sidii u soo istaaga aragga ciyaarana waa bakhtiyaan nasiib nardigu wuxuu ka mid ahaa ciyaaraha bakhtiyaan nasiibka ah walidaalika in badan culimadu waxaa arkaysaa iyagoo leh qimaar khamaarkuna laftiisiisa waa bakhtiyaan nasiib baalka gooso meeshaa xoq waad arki baalkaa sameeyo magacaaga meeshaa ku buuxiyo ku rid waxaana iska bixi waad arki ku buuxiyo magacaaga haddaan waxaa iska bixiyo xoolo iyo la soconin qamaar ma noqoto saas darteed waxay ku xiran tahay waxbaa lagu kala qaadanaya xaraan bay noqonaysaa haddaan waxba lagu kala qaadanaynin dikrigii iyo makaa mashquulinaysa cibaade iyo waajibaad adduunkaagii dherigii baa gubanaya inta lagu mashquulsanaa waalidkii baa kula hadlaya lama maqlayo waajibaadkii shaqa iyo waxbarasho lama samaynayo xaaraan bay noqon salaadii bay kaa mashquulin xaaraan bay noqon intaa midna maaha laakiin cay bay leedahay waa la isku xanaaqaayo indhaha dadka guduto waa la isforjeeyaayo iyadana xaaraan bay noqon alcadaawata walbaqdaa bay abuurigii waa intaaba hadday ka bayr nadiif noqotahay aniga waxay ila dhawaa masala khilaafiya asalka ibaaxada inay bannaan tahay wabillahi tawfiiq جزاك الله خيرا شيخنا سؤال شيخك وحي leedahay laba shay oo ah toothpaste-ka ama maadada lagu cadaydo soonka ma jabiyo haddaan ku cadaydo rooseetada ay gabdhuhu afka ku gududsadaan oo ay marsadaan ayaduna soonka ma jabinaysaa su-aasha xigtana waxay leedahay qofka asagoo sooman haddii iska weydiiyo ma afuraa mise waan iska soomanadaa soonkii ma ka jabaya haddii uu gadaal ka go'aansaday inuu soonka sii wato alxamdulilah saddexdaba maya dawada cadaygu iyo tan afka la marsanayo waxaad ka eegtaa markaad weysiisanaysa waa luqluqanaysaa waxaama inta afka la marsanayo intay luqluqiyo afka biyaha gudaha gaadhayeen maba gaadhaysa way ka wada sokaysaa wixii dhuunta hoos u dhaafa baa jabiya biyuhu hadday kharaar yihiin ama qabow yihiin waad ka dareemaysaa jirkaaga dawada cadayguna haddaad cadayato waad dareemaysaa dareenka dhadhanka la dareemaayo soonka ma jabiyo saa darteed baa intaa ka badan sharcigu ogolyahay cunnada la karinayo in la dhadhamiyaa la ogolyahay adoon liqin inaad carabka saarto ama iliga ku qabato ku yar ruugta bal inuu jilcay wixii yaa la ogol yahay waayo iligan aad ku ruugaysaay biyaha ku luqluqanaysay iliga way kor socdeen sooma cadaygii haddaadan kan daawoba qaadanin oo cadaygeeda qaadato ilkahanaad wax ku dhadhaminaysa inuu jilicsan yahay waad kor marmarinaysa un sooma dareenka ay xubnaha ay qaadayaan dareemayaashu gudbinayaan waa qaraar yahay waa macaan yahay waa dhanaan yahay ma dhanaano waxba u dhimi maysa soonka walidaalika wixiina intii la ruuga waa la iska tufi karaa saa darteed culimadana waxay ka hadlaan xanjada la ruuga sana soonka xanjada haddaad ruugto candhuuftana iska tufto keliya waxaa la eegayaa laba midkood xanjadunba waxaa ku jira wax miilmayo candhuufta raacaya oo gudaha kuu galaya xanjooyinkan magaaladu wax nacnaco macaan iyo wax lagu lamaaneeyey yaa ka buuxa saa darteed candhuuftay kuu raacayaan adunugay kuwa way jebinayaan soonka
in xanjadii baadiye geedka laga goosan jiray ama xanjo kuwan magaaladu horey loo soo rugay habeenkii oo meel lagu dhejistay wax dhacaanoo iyada ka soo baxaya lahayn dad candhuuftaa iska turto soonkaaga jebin mayso waayo baashanaad rugaysaay ilkii cadayga aad marmarin lahayd mayna dhaafin marka saddexdaasi midna soonka ma jebiya wallahi tawfiiq جزاك الله خير الجزاء شيخنا سؤالها حيقا وحيليهين ومدى كوباد هيلب كجيلة مجبيا ويسدا سؤال شلابات عربد الله اسكدرو ميجبسا صومك الحمد لله عربدو هذا عربد الحدادة إلى لقاته وما حنم لوقاته والغبارة يا لوقاته هو إنرجي أنا هين صومك مجبيا haddii ama xididaa laga qaato ama jirka caadiga oo garba iyo dhinac iyo laga qaato soonka waxba uma dhimayaan allahumma inay energy tahay maani kuwa enerjiga iyo nafaqada hadday tahay soonka way jebinayaan hilibka geelu weysada ma jebiyaa haa nabigana la weydiiyey sal ly salam hilibka geela ma ka weysaysanaa markaasuu yidhi haa ka weysaysta waxaa la yidhi haddaba hilibka ariga ma ka weysaysanaa wuxuu yidhi maya ka weysaysanaa bilahi tawfiiq جزاك الله خير الجزاء شيخنا لبدا السؤال حيقا وحيليهين مد وحيلة حريرتا حالدنا نحن كجرنا شيخنا أونلاين ملغا حيران كرا صلاة ميل لغو جيرو أو ميل لغو تكون كرا سيداس سؤال شلباد وحيلة هاي dagaalka hadii la dagaalamo maalin soon dhaxdeeda soonka ma jabiya hadii se dagaalka dhaxdiisa dhiig iga yimaado soonka ma iga jabaya alxamdulilah dagaalka soonku kuma habboona waayo xataa haddaad gar leedahay mar haddaad carooto afkaaga iyo adinkaaga ma xakamayn kartid nabiguna waa ka dardaarmay oo wuxuu yidhi hadduu adoo sooman qofku jahli si jaahilnimaa kula dhaqmo ama kula dagaalamo ama ku caayo faliqul innii mri'un saa'im ana waa soomanaya ha yidhaahda soonkayga ilaashanaya hadday dhacda in la dagaalamo ama dhiig yimaado soonka ma jebiso laakiin wixii dembi aad samaysay ajirkiisu wax u dhima taasi waa su-aasha koobaad su-aasha online ma lagaga xiran karaa maya salaada sharcigu jamaaca waxaa loogu talagalay dad isu yimid saa darteed baa goobo iyo masaajid loogu sameeyey in la isu yimaado nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xaasaskiisii oo masaajidka ku dhaganaa irdahooduna masaajidka ku soo wada jeedeen qofkii hadda idinkeedii ka mid ay tagayna waa arka meesha rawdada masjidka nabiga calayhi salaam markaad qiblada u jeeday derbiga bidixda ka ah guryihii nabiga ahaa albaabadii ku soo jeeday guryaha gudaha kagamayna xidhan jirin guryahoodan gudahan kaga ictikaafayna amaanay dhihi jirin salaada jamaacadu waa salaad meel la isugu yimid dadku isku yimaadeen oo jamaaco ereygeeduna min alijtimaaci isu imaatinkaas wey dad qof walba xafiis ku jiro oo qof walba gurigiisii joogo salaad jamaaca ma aha ku xirashadeeduna wax mashruuca ma aha marka masaladaas waxba yaan laydinku lugoyn intaan ogay hay-adaha cilmiga islaamiga meel kastoo ay ka jiraan arrintaa khilaaf kama taanin saa darteed gurigaagii mar haddaad joogto jamaaca haddaad u baahan tahay dadkaa guriga kula jooga wada jamaacaysta oo idinku isku xirta bilahi tawfiiq بارك الله فيك شيخنا سؤال شيختا لبدا سؤال حيقا وحيليهين شيخ كورن دعاء التوسل ولا صعد رسولك صلى الله عليه وسلم أما أولياء لمتى حكم كذا محوية هي سؤال شيختنا وحيلة هي قبري هدي كطاهر نقطه عادة هبين كالحديث ما هو واجب إن القبيس قاطع أنت السحور تكهر رئيسا بسه صون كذا وصحيا هدي سحورته أديك كذب أي قبيسة الحمد لله gabadha duliikii caadada ka dhammaada soonkiina ay niyooto soonkeeda waa asaxaya qabaysku wuxuu waajibaa markii salaada la tukanayo saa darteed salaaddii subax hadday soo gasho markaa kadib baa la doonayaa gabadhii inay qabaysato ay tukato raggana waa lamid rag iyo dumarba qofku isagoo janaabo qabo qabays waajib ku yahay soonkiina niyooday hadduu waagu u baryo soonkiisi waa asaxaya marka qabayska iyo soonka iskuma xirna asixitaankiise dhiigga gu'itaankiisii
iyo niyaduba inay dhacaan salaad subax ka hor bay u baahan tahay kadib salaad subax kadib way qabaysan kartaa waayo salaad subax waa waajibka oo qabayslaana ka asaxaynin بارك الله. su-aasha labaad ee tawasulka tawasul waa eray carabi ah wax ilaahay loo marayo lagu gaadhayaana looga jeeda sharcigeennu labadaba wuu ammaanay ilaahay in loo maro marka la baryayo mid saddexaadna wuu baneeyey oo waa la ogolyahay labada la ammaanay ilaahay inaad u marto adoo ku ammaanaya magacyadiisa ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بل أنت إله وحوي ديسن إلهي وضع سدن إلهي وضع رحيم إلهي وضع غفور إلهي وضع والبأود إنا ترى وحاكرون السنية وأنا أكثر وشرعي أنه يريد أدوه وحفي عن أوت سماي السي إن إلهي كبر ده إله سياسة سوي ترتاوان السمي ترتاوان سوية ترتاوان سوية إله ما أنت سائية سيد الحين يجري وكد ما بيحايا mid saddexaadna ilaahay loo mara waa la ogolaaday qof ilaahay kuu baryay intaa u timaada ilaahay ii bari inaad dhahdo sida nabigaba loo dhihi jiray calaih rasuulka ilaahay ii bari ilaahay roob noo weydii qof ilaahay kuu baryi kara inaad tidhahdo ilaahay ii bari saddexdaasi waa saddexda dariiqa ee sharcigu ogolyahay wixii aan saddexda ahayn sharcigu ma ogola hadba intuu fog yahay buuna dembigiisu dhan yahay inaad tiraahdo qaybna waa bidac qaybina shirki iyo wax diin looga baxay gaari qayb waa bidaco inaad tiraahdo ilaahu sheekh hebel fadligiisa wax igu sii ilaahu weli hebel dartii wax igu sii qaybta bidacaa wey adooba heli keen ilaahu asmaadaada fadliga badan igu sii waxaan markii barya ay noqotona waa cibaado oo sal inay yeelatay u baahanta qaybna shirki bay geli oo sheekh hebel oo wada hadoo tiraahdo ilaahay igu sii baan uga jeeday ilaahay baan u marayay dee mushrikiintu wamaa nacbuduhum ilaa liyuqarribuuna ila allahi zulfa waxaan u caabudaynaa aan u baryaynaa ilaahayna noo dhoweeyaan bay lahaayeen marka hadba intuu sharciga ka sii fog yahay khaladkiisu dhan yahay buu dembigiisu noqonaya bilahi tawfiiq جزاك الله خير الجزاء. صدح جانس أو أن سؤالك ويديننا الشيخ أي نهري وقت أوجس جانس ككوبات دور سؤاله ده يعني سكون جملين يا شيخو توبينتا أما توبيتانكو صون كمجبيا تاسو عن رأينا يا جاجدا ولا حيرته حكم كذا محوية هي وعن أيضا الراعين دون السؤال حالتنا أي كنتي قف دمر أحمد تجين كرتا رج إهل كذا. الحمد لله وحين هالمعمو السؤال هذا بيكلا فوقفوه أسكو باب به هذا يحسس سؤال شباب كان لحير يرتعد هو ما يمسن وهتوبينكم متشبيه صونك مايا متشبيه حديث كورونا يا أفطر الحاجم والمحجوم كالطوبية كالطوبية صونك ودي واحد شبينا حديث لما السخاية ويشير شرتي لكن حكم كوالا بدري حديث كعد وكير النبي رجل دجال كي موتى سنة كي ستين الهجرة كل انتبه حيان كذب حلقة كذب وفتح مكة كذب بيجينا نبي عشر ملوش طوبي يسوى الصومان سيد حديث كابن عباس وين سؤال الله بعد ووقت كان لحر يدنا قف دمر الرجل متوقين كرتا جوارته ومايا وانكو يدمر ما ترجع يدمر دي وده كان أيام وحنا بقى كبر النبي صلى الله عليه وسلم دمركو صفقة دنبي ليهين هراي ما مريكان إمامكنا هراي بمرة إما كرفون كم هي كرقوف تذكر رأي الله أكبر سلام تلك قاركيه السمايان كرسي تكوفر يستدعى سكوح حنين وفربضان ومال كنت كان يا الله أكبر سمع الله نلو تكن إنه كرسي كوفر ليه ومرك قاركو الله أركاه لذلك جماعي تكن يا بدنودي ذات جماعنا ما تكن سكوم حرنا حديث كأم ورقة ورانا يا بعض النساء بعض أهل بيت هل تكسون ما بيقول أمري ما أنسحن هذه ضعيفة وهي لما مجهول باكوتشرة لما قفوا ولا جرانين قيمت إني تكسر رجع هذا أنا ما رأينا إسكوا فق اللفظ حديث كاسنا مصر من حديث أم ورقة وحديث ضعيفة وهي سنة شرحيرة كاسنا حيسي من أمرنا يا شرحيرة كوا لما قيمت
timaha la xiirayaay xadka ay madaxa intee bay ku jiraan dee dadna ilaa madaxa qadaadka bartankiisa ay xiiraan dadna timaha xadda madaxa hoos uga daadagay ee qoorta u daadagay bay jaraan wixii xaddii madaxay asalka ahayd ka baxay ama qadaadka dambe ha uga dego ama dhinacyada ha uga degay jaristiisi iyo goyntiisu dhibaato malaha way bannaanta qaybta madaxa qayb ka mid ah in la xiraay jeegada iyo qaybta hore isku mid waay ama sidii soomaalida carruurtii hore u xiiri jirtay dhoorka la dhihi jiray ama gabdhaha wareegga loo samayn jiray ama wiilasha laba dhex loo xiiri jiray maxaa arkaa tii baadiyaha aan samayn jirnay oo hadda reer magaalnimada ilbaxnimada yurubta laynooga dhiga laga keenay oo tii sidii baadiyaha dhaqankii loo xiranay sidaas taasi waa karaahiya oo ma fiicna nabigana alay sala wuxuu nahaa cani ilqazac qazacu waa madaxa qayb in la xiiro qaybna la daayo masaladuna waxaa laga hadlaya waa xiiritaan salka laga xiiray nahyigaa ma soo gelayo qaybna haddii la gaabiyo oo la kala gaabiyo laakiin timaha waa la wada gaabiyo lama xiirin waa la jaray xiiritaanku waa salka marka laga maro gaabin iyo jaritaanna waa qayb in laga tago haddii la wada jaro qaybna la kala dheereeyo qazaca ma soo gelaysa nabigu reebay keliya waxa uu noqon curfiga iyo dhaqanku ma dad fiican baa dadka miyay wada sameeyaan akhyaartii mise inta ardaalada lagu yaqaano wixii ardaal lagu yaqaano in la sameeyo waxyaabahan fiicnan bay ka mid tahay billahi tawfiiq جزاك الله خير الجزاء عن جعلنا لطينا كعذر دارتو أرضيدا والدين برنامج كلا صعد سؤاله زايد بدينهن لكن وقتك أوجيس لو جانس أي نهرتي شغلنا سؤال شهر وحيلة هاي قرآن كهدي الله أخي والد بنتي ولون يودو ثواب كيسو مجاريا مسمية تاسي وحن راعينا يا سؤال له جوجوين كدكتا أما إيش الله شبو داوى أهانت الله استعمال الصوم كما جبينيسا سؤال سدحات زائد بي وصل الله بطي جيم كان لو يقانو بابجي محارم با سماع الحمد لله سرد الجيم كما قرنا الجيم كان أركسر الله خيار ما هني وحنا نقولين وانا أركسو حيدي ما قرنا هو بانتر الجيم كان أركو مرة كدي بالله يحوم في سنة تمام قرنا سنة وقت waxaa lagu dhigtiyaa ay soonka ma jabiya maya waayo dhagtu dhuunta uma duleesho waxa dhagta lagu shubayna dhuunta lagama dareemo allahumma xuubka dhagta iyo dhuunta u dhaxeeya xiraay inuu qofka ciladi ku timaado duleeshama maahan culimada dhagta waxa lagu shubay ka hadasha inuu buriyana waagii horena tuhum waxaa jiraya sida sanku dhuunta ugu duleelo in dhagtu dhuunta ugu duleesho hadallo badanna waxaa iman jiray qof dhegta wuxuu ku shubay dhuunta inuu ka dareemay laakiin hadda horumarka caafimaadka aadamuhu waxaa la gaaray dhegtiyo dhuunta isuma duleelaan laakiin dadka dareemayaay marmar buu xuubku duleeshamaa way ciladii ku timaadaa hadduu duleeshamo waa laga yaabaa markaa inaad dareento ay gudubto asalku laakiin ma jebiso ta isha haddii wixii isha intuu gudbo uu dhuunta gaaro dhuunta ka dareento wuu kaa jebinaya haddii kalena maya afkoo duleelaba wixii gale ee halkan luqluqluqday ma jebinin wixii isha gale isha ku wareegay jebin maayo ilaa uu dhuunta u gudbo u duleelo sida sankaba biyaha lagu marsaday ilaa dhuunta u gudbanayna u jebinaynin su'aal baa jirtay aad ku bilowday qur-aanka in la akhriyo oo qof dhintay ajirkiisa loo hadiyey ma gaaraya haa cibaadaadka kale ee ka la soomo ajirkiisa loo hadiyeeyo inta la xajiyo la cumraysta loo hadiyeeyo inta sadaqa la bixiyo ajirkiisa loo hadiyeeyo buu la mid yahay billahi tawfiiq جزاك الله خير الجزاء سدح سؤال إسراع يعني قصة ختمنا برنامج كنا سؤال شكوبات حيلا هاي شيخنا حالات جرت أوجد هدي عيد جماعة حافظ من اللي قلت كان كرا وميد كوبات سؤال شحكت وحيلا الشيخ شو كان سجع من اللي أقول لي هاي أيضا للسومني هاي سؤال صدحات قف دقوبي حنون أبو هيو إلمان كيسو نبدن يهي صلاة maxay noqonaysaa xukunkeeda alxamdulilah masalada qofka waa yeelay halmaankiisu badan yahay halmaan badni iyo yaraan wax badan kuma xirna waxay ku xintay garashadiisii ma joogtaa mise ma joogto
hadday garashadiisu tagtay sonna laguma laha fidyana laguma laha hadday garashadiisu joogto ama marna tegaysa marna imanaysana soonkaa fidyaa laga bixinayaa taa masalada koowaad masalada labaad soonka haddiiba la diiday ciidii bannaan in loo baxo ciidda guryaha ma lagu tukan karaa haa keli iyo jamaacaba waa lagu tukan karaa sideedii baana salaada loo tukan takbiirtii hore marka allahu akbar dhahdo 7 jeer baad allahu akbar ku celin ragcadda labaad markaa soo toosay allahu akbar soo dhahdo 5 baad gadaasheed ku celin waana labadii ragcadood intii la akhriyi jiray baa la akhrinaya akhriskana kor baa loo akhrinaya keli iyo jamaacaba saasaa la samayn jamaaca hadday tahay oo intii guriga jamaaca waad ku tukan kartaan hal guri ama 2 guri iyo 3 guri isu yimid jamaaca haddaad ku tukataan waxaa fiican salaada kadib midkiin inuu idin wacdiyo booskii khudbada oo khudbo yar intuu istaagay idin wacdiyo sidaasaana ciidii lagu tukanaya insha allahu tacaala haddaan laynoo furin goobihii lagu tukan lahaa ee gudiga bannaanka hal su'aal baa idin maxay iyadoo la sooman yahay shukaansigu ma bannaan yahay wixii camaalahay bannaanaa markaan la soomanayn markii cuntada iyo cabitaanka iyo soonka waxyaabaha jibiya laga reebo waa bannaan tahay laakiin mar walba soon iyo soon la'aan shukaansigu horta waa inuu daacad yahay qofku guurdooya ee uusan ahayn ku barbarasho iyo magaca shukaansi baan nooga leeyahay marba meel baan ku dayaayoo waqti aan isku dhaafinaya taa lama ogola marka labaad waa inuusan xuduuddii aadaabta uusan gudbin labada shukaansanaysa 2 qof oo isqabin wey 2 qof oo kale ajnabi ah wey waa inay xuduud iyo waxa muhiimka ka wada hadlaan waa inaanan imanin wax intaa ka badan gabadhuna markay la hadlaysanin sidaas oo kaleeta falaa takhdacna bilqowli ereyga iyo hadalka waa inaynan wax dhib keenayi iyo sidii xaas iyo reer isqaba aanan u hadlin ee hadalkeeda ilaaliso wabillahi tawfiiq بارك الله فيك ونفعنا بهذا العلم شيخنا خير الله كسيو وقت قاعد نوهرتي سؤاله زايد بدنيهين أرضيضنا حضور كذا وحل قدر ما إني زايد ودنينا يعني برنامجك وحن أرضيضة يوالدين نصعت محاضرة جعلان لا إنا نوبيستيو ما نقن دونتو برنامج كينا وجوه الري يمتك أقدم بيتونا haddii ilaahay qadaro in mixnadan ay naga dulqaadanto iskuulaadka dib loo furana barnaamijkeeni khamiis kasta subaxiisii ahaa waa inoo socon doonaa haddii uu xaaladdu sidan kusii socotana waxaan idin ballan qaadi doonaa insha allah barnaamij kaloo fara badan oo noocan ah oo isugu jira muxaadarooyin iyo su'aalo iyo jawaabo ood kaga bogan doontaan insha allah su'aalihiina waana ka cudur daaranaynaa wixii su'aal ah ee waqtigu inoo saamixi waayey inaan soo gudbino وأنا أمهد علينا أنغو بهذا كاليفورنيا جروب أوف سكولز شيخ محمود شبلي إيوه دايركتور كان أستاذ محمود شيخ إبراهيم وبرنامج كان إنو سوق بنقابي وأمهد سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته